waxay ku sinan tahay mar ee shacabku waxay rabaan u horkaco guushuna intaasay ku jirtaaba shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waa dad ilaa wax xumaanta qiimeeyana wanaagga iyo sharafta markaa taagan qofkana ku ilaawi kara dadka Soomaaliyeed oo dhan baa taa ka siman waa dad samir leh sabr leh wixii wanaagsan soo dhaweeya hanbaliyaan leeyahay Saciid Cabdullaahi Deni iyo shacabka reer Puntland waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo inta hanbaliyada markaan dhaafo ciidanka ama tiimka ama kooxda garowa dibka iyo khalkhalka ka wada iyagana inaan hal soo jeediyo raggaasi waa rag macnaa markii reer la eego reer ah laakiin waa koox yar hadday ciidan tahay hadday siyaasiyiin tahayba kuwa Puntland wax ka bedelaya ama xumaantooda ku socodsiin kara maaha ciise maxamuud oo dadka sharafta badan ah oo jiida ku jira oo dagaalka halganka ku jira oo waxa weeyaan xabsi u galay oo u dhintay oo u dhaawacmay oo haddeer u fadhiya kooxdaasi horta magacooda ma bedeli karto mana xumayn karto wax garadka ciise maxamuud oo shacab iyo isimaba lehna waxba kama bedeli karto kooxdaasi laakiin iyagaan waxaan rabaa inaan u caqli celiyo siiba siyaasiyiinta la hadli maayo waxaan la hadlayaa ragga dhalinyarada oo uu hogaaminayo ninka la yiraahdo Jimcaale iyo saraakiisha kale ee wataan waxaad tihiin rag dhalinyaro ah Jimcaale waxa tahay weliba adigu nin weyn oo waayo araga ragga kula socdaa waa rag aad u qiimo badan waa rag aad u qiimo badan waa rag horay u halgabay waa rag aan maanta laga filayn inay gurigooda iyo xaasaskooda iyo carruurtooda isweer ka qabtaan Jimcaale iyo saraakiisha kale oo la socota waxaan leeyahay ciidanka aad garowa ugu goordinaysaan ama ugu hanjabaysaan bal eega nin hal nin oo ka mid ah oo aan xaaskiisu garowa joogin iyo carruurtiisu kuma jiro kulli dhammaantood say u badan yihiin carruurtooda iyo xaasaskooda garowa jooga waxaan idin leeyahay tolka sharafta badan ee ciise maxamuud ee qiimaha iyo qaayada leh ee wax garadka iyo isimada iyo culimada iyo halgamayaashaba leh waxba kama bedeli kartaan magacoodana ma xambaaraysan laakiin waxaan idin leeyahay Jimcaalow iyo saraakiisha kale oo la socota ha ku khamaarnaan ragga rag qiimo leh baa meesha maraya laakiin wax qaabka u adeegsanaysaan iyo go'aanka aad qaadateen baa wuxuu yahay mid khaldan halganka hartina dhabarka ka jabinaya halganka ciise maxamuudna ceeb ku ah waxba kama bedeli karo laakiin ceeb buu ku yahay ka daayaan leeyahay meel u idman oo loogu tala galay oo uu gayo raggaasi inuu ku dhinto baa kuu furan ka daa in adeerow ka daabaan leeyahay oo ragga ka daabaan leeyahay oo ka daabaan leeyahay oo maanta dhinac walba ha noqotee ma oranayo hal isweeraro oo ragga ama awoodaha lagu qabto ama haddii loo ku ron yahay iyaguna waxa geysteen iyagana waxa loo geysto ma oranayo waayo kan xaggaayba waa garabkaygii ma doonayo in dhibi ku dhacdo ma doonayo in khasaare gaado ka daabaan leeyahay oo u caqli celi raggiina saraakiishaay waxaan leeyahay iyo ciidankiinuba bal fakara oo waxa meesha qayrkiin jiro oo qayrkiin ku dhimanayo oo qayrkiin xabsiga ugu jiro oo qayrkiin cusbitaalka u yaallo oo qayrkiin u agoomoobay bal eega waa meel maanta waajib u leedihiin inaydin qayrkii ka harin eeg cadowga asalam wuxuu maalin walba ku hanjabi jiray yoocadaan taagannahay garawaan intaa u jiraa haddii maanta tolku gurmad isugu yimi oo ilaa raasi casayr laga yimi oo cadowgii halkaa ka hanjabayey dharbaaxa lagu dhiftay halkaa la geeyey waxaa tahay saraakiisha Jimcaale u horreeya waxaan leeyahay raggii ka faa'iidaysan lahaa oo ragga ugu hormari lahaa baa tihiin
raggii ka faa'iidaysan lahaa oo ragga ugu hormari lahaa oo inta ninka u dameeya ka imanayo waxa weeyaan maanta jiidda fadhiyi lahaa baa tihiin sababtoo ah kaligiina mar halkaa fadhiyi jiray oo jabhadda islam idinku hanjabi jirtay waan caasimaddaanu qabsanaynaa caasimaddana difaaceeda jimcaalow adiga koowaad ka ahayd raggii waxa weeye ay ku xisaabtamaysay maanta aad fursatal dahabiya haysato oo cadowgii waxa weeyaan la jabiyey oo aad mudnayd inaad ragga ugu damayso dagaalkana ugu hormarto inaad intaa soo dabamartid inaadeerow aad carruurteennii iyo waxa weeyaan magaaladeennii iyo maatadeennii aad qoriga saa ugula wareegto waxna qabta maaha wax ku qabtana maaha wax isimadaada iyo salaadiintaada kaa qabtana maaha kaddaa baan leeyahay inaadeerow dhammaantiin waxaan idin leeyahay idinkoo aanan askari iyo sarkaalba kala saarayn hadalkaan idinkula hadlay qiimeeya ka daaya oo ragga ha nagaga laynina guryaheenna iyo waxa weeyaan gudaheenna ha ku laynina oo ka daayaan leeyahay oo wiilka maanta garowe isweerka ka haya haddaanu si khaldan u soconayn adeer waa wiilkii dhaawacayga qaadi lahaa aniguna dhaawiciisa qaadi lahaa waa wiilkii dhufayska xabadda ila geli lahaa ka daayna adeerow baan ku leeyahay ka daa waxaan ku ninka raga mar waa ka hoos baxdaa jimcaalow markii aad jiidda ka soo baxday nin raga weligeeday bahashu ka hoos bixi jirtay laa bas dhacday oo khasaare geysatay haddaan waxaan ku leeyahay ina adeerow ka daa baan ku leeyahay oo kuwa kula socda iyo kuwa la midaba ha isku layn ragga ha isku layn magaceenna iyo sharafteenna iyo sameecaddeenna iyo halgankeennana ha ku cayaarin hana dhegaysan hadduu aabbaha yahay iyo hadduu adeerkaa yahay siyaasi danleeya oo dalka raba inuu dabgeliyo ha dhegaysan sharafta iyo karaamada isimada ka xisho oo maatada ka xisho oo garaadada ka xisho ilhaamo ka weyni ma jirto intaasoo isin oo hartiya oo garaad leh oo islaan leh oo beeldaajo leh oo waxa weye nooc walba leh hadday kaa weydo inaad maqli weydo wallaahi billaahi tallaahi inaadan xabbad u baahnayn sidaasaad rasaas ku qabtaa ka daa ilhaamada inaadeerow ragga ka daa ilhaamada oo ka daa xabbadda oo ka daa dhibka aad ka wadda caasimaddeenna iyo gurigeenna iyo carruurteenna hadalkaasi waa hadal inaadeernimo waa hadal tolnimo waa hadal jacayl weey kuma caayayo kuma maagayo last time weeye waxaan ku leeyahay ina adeerow iyo ilma adeerayaalow waxaannu dareemaynay dhufayska iyo dhaxanta ugu jirro inaad maanta dhabarka ka jebisaan waxa weeyaan waa matalowda oo aad dhegaysataan siyaasi ku hoggaaminaya inta wiil askari iyo siyaasi u hoggaansan yahayna wallaahi inaan carruurteennu xoroobayn iyo billaahi iyo tallaahi idinkana intaasaan idin leeyahay tan kale waxaan u gudbayaa gobolka sool waxaan marka hore u mahad celinayaa guddidii 33 ahayd ee gobolka sool ee laascaanood hambalyaan leeyahay wakhtiga la soo maray dhabaradayga iyo guulaha iyo waxa weeye go'aamada aad fuliseen guddidii 33 hambalyaan leeyahay garaadada dhammaantood sharafta iyo qiimaha iyo karaamada mudan hambalyaan leeyahay halgankaad muujiseen iyo meel kastaba oo aad waxa weeyaan istaagteen hambalyaan leeyahay waxaanan u hambalyaynayn laakiin oo caawa aan ku ahay weerar liddiya aanan u hambalyaynayn kuna cayaaraya halgankii gobolka sool iyo sharaftii ciidamada geesiyaasha ee jamaahiirta oo doorkoodii iyo booskay lahaayeen ka gaabiyey halka garaadadu booskoodii ka soo baxeen oo aan ugu hambalyaynayo halka guddida 33 ay gaareen heer guddi beddesha ay dhiseen halka wax badan ay qabteen oo aan ugu hambalyaynayo waxa booskoodii gabay oo aan caawa dhaliilaya oo dhaliil mooye aan hambalyo mudnayn saraakiisha guud ee ciidamada ee harti ee gobolka sool fadhiya saraakiisha guud iyo kuwa ugu sarreeya iyo kuwa dhexe dhammaan anigoo ku hadlaya ciidamada harti ee meesha jooga dhammaantood afkooda anoo ku hadlaya hoggaamiye kasta oo ciidan xukuma oo harti anoo afkooda ku hadlaya waxay ka gaabiyeen doorkoodii waa saraakiisha guud
dhammaantood way iskaranayaan ee laascaana fadhiya oo inay ciidankii isku xiraan oo isku xirka ciidanka ka shaqeeyaan ka seexday oo inay fursadda dagaal oo ciidanku u taagan yahay guryahoodii uga yimi inay ku fuliyaan ka seexday oo aan wax caawa aan waxa weeyaan dhinacay naga jiraan aanan garanayn way ka gaabiyeen booskoodii way ka gaabiyeen waxaan ugu baaqayaa intaa u dhaafsiin maayo canaan saraakiishaasi way isgaranayaan ee guud ee harti ee gobolka fadhida laascaanood caawa guddida 3 waxaan ka rabaa guddida 3 waxaan ka rabaa inay sarkaal guud ee ciidamada iyo sarkaal ku xigeen magacaabaan siday u magacaabeen guddida kale ee 40 dhowrka ah inay guddida 3 noo magacaabaan baan doonayaa caawa isku xirka hogaamiyayaasha ciidamada samaysanaya markay helaan taliye guud oo ka madax bannaan saraakiisha iyo ku xigeen loo idmaday dhammaan inay ciidamada hogaamiyaan inay caawa guddida 3 iyo garaadadu noo ishaaraan baanu doonaynaa ciidan kasta oo harti oo goob walba joogaana sharaf iyo ammaan iyo karaamo mudan yahay ee geesiyaasha ee wax weeyaan amar siiya in badan baanu ku ixtiraamnay kaga xishoonnay waa saraakiishii guud malihi anigu hadda waxa weeyaan xaq kale u shaqaynayaan kamana suurowdo laakiin waa habsan iyo seexasho ay sameeyeen waxa loo baahan yahay taliye isku xira ciidamada dhammaantood waxa loo baahan yahay taliye joogta ah talis walba oo ciidanka uu fadhiyo waxa weeyaan go'aanka gaarsiiya taliye adeega loo baahan yahay ballama oo axdi iyo ballan leh ugu ciidamada wixii loo idmaday ku shaqeeya ciidanku maxay meesha u yimaadeen aroos uma iman hurdana uma iman inay wax iska cunaan uma iman in maalin walbana godka waxa weeyaan hadba dhagaxnala kaga soo tuuro uma dul qaadan karo laakiin waxaan ugu dul qaadanay saraakiishiina ha dhabar jabinina caawa anigoo afayeenka ciidanka foolmaroodi laakiin amarjansi ku hadlaya dhammaan afayeenka ciidamada harti oo dhan hanastay saraakiishaas oo shoodha u horeeyo indhayare u horeeyo xijaar u horeeyo saraakiisha guud iyo kuwa dhexeba waa inay nastaan sharaf iyo karaamay mudan yihiin waa inay nastaan laakiin waxaanu doonaynaa guddida 3 sarkaal guud inay noo amraan caawa oo ciidamada isku xir sameeya oo waxa weeye ciidamada hawlgeliyaan u baahannahay isku xirkooda ciidamada yaa ku filan ciidan walba waxa horkacaya oo xukuma ciidamada sarkaal u tababaran karti iyo waxa weeyaan aqoonna u leh laakiin xushmo waxa lagu xushmaynayaa oo inta loogu dul qaadanayaa saraakiisha wixii raggu ku sheekaysanayeen ee ciidamadu tabanayeen baan caawa halka marinaya dhawaaqan caawa u gudbiyey guddida 3 iyo garaadadaba waa mid waxa weeye aan in badan xakameynaynin sababtoo ah tolka meesha joogay iyo ciidamada iyo saraakiishoodu wax laga fursan waayay mooyee uma baahna in farta la isku fiiqo laakiin farta caawa waxaan ugu fiiqayaa saraakiishida adeer hanasteen sharaf iyo karaamay mudan yihiin caawa ciidamadu waxay u baahan yihiin dhammaantood saraakiil degdeg ah oo isku xira oo loo magacaabo hawshana sidii loogu talagalay u guta cidda aan booskooda ka soo bixini waa saraakiisha iyadana intaasaan leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan ku daro xamse iyo xasan sheekh waa madax Soomaaliyeed anigu mana caayayo mana ammaanayo sababtoo ah waxay yihiin ama ku sifoobeen waan garanayaa laakiin igama mudna sababtoo ah waxaan qalbiyadooda tixgelinayaa cid badan oo Soomaaliyeed oo garab taagan oo taageeraysa baan diidayaa inaan qalbiyadooda jabiyo waxaan xushmaynayaa maaha iyaga oo aan wax uga sheegi waayey cid badan ee Soomaaliyeed yaa xamse iyo xasan sheekh waxa weeyaan u jeedata oo daawanaysa oo taageersan ma doonayo marka dadka Soomaaliyeed inaan qalbiyadooda jabiyo oo dhaawaco
iyagaa arki doona hadday fiicnaadaan iyo hadday wanaagsanaanba ma rabo inaan qalbiyadooda jabiyo yidhaahdo xasan waa nooca xamsana waa nooca halka keliya aan ka hadlayaa waxay ee aan xaq u leeyahay aan cidna caawa igu diidi karin garaadadu waxay ku maadsan yihiin inay u hoggaansameen shirka madaxdoodu ay ugu yeertay waa ku maadsan yihiin sababtoo ah muqdisho waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed waxa weeye waxgaradkii ummadda soomaaliyeed baa jooga dowladdii soomaaliyeed baa ka dhisan inay u hoggaansamaan waa ku mahadsan yihiin isimadu oo ay tagaan oo ajiibaan laakiin markay tegayeen waxa ay kala kulmaayaanna waan garanaynay iyana way ogaayeen haddana way soo baxday dagaalka intaa socday ee ninkan afka taagay ee soomaalinimo diiday oo hargeysa diiday in madax soomaaliyeed ugu timaado oo isagu sanka ka qabsaday inuu muqdisho tago oo aan soomaaliba isu arag in loo sanduleeyo garaadada soomaaliyeed oo la yidhaahdo nabad la qaata soomaaliya idinkaan idin weydiinayaaye qoodhiin iyo xeradiin iyo xiniintiin ma qabataa wax qabata ma tahay nin diiday soomaaliya inay hargeysa ka degto nin diiday inuu muqdisho isagu ka dego ee sankaba soomaali ka qabsaday ee maradan yar ee tawxiidka beenta lagaga sheegayo oo soomaali lagu dhammeeyey ay u suran tahay ma istaahilaa hadafka noocaasa iyo ninka noocaasa in isimada sool iyo sanaag iyo cayn loogu yeero loogu sanduleeyo oo lala soo hor fadhiisto la heshiiyo xabad joojin qaata ma istaahilaan laakiin waxa maqraanti cad oo ay ka turjumaysaa inay xamse iyo xasan ay goonigoosadka raalli ka yihiin ay garab aan caadi ahayn siinayaan intii dagaalku socdayna waanu arkaynay waana u jeednay waxayna maqraanti ka tahay maanta uma baahna in isimada in loo yeero laakiin cidda mudnayd in khasab loogu tago ama khasab loogu yeero muuse biixi buu ahaa waa og yihiin oo kala xishoonayaan inuu xamar yimaado ma odhanayaan aan kuu nimaadnana ma odhanayaan oo nimaad intaa odhan weyday adigu u tegi weyday xamse iyo xasanow nimaa idinku u tegi weydeen una yeeri weydeen soomaalina halkaa ka jooga damiirka idin siiyey inaad isimada soomaaliyeed intaa gogol u dhigtaan tiraan leeshii oo nabad la qaado wax soomaali qabta maaha wax garaadada qabta maaha wax annagana qabta maaha wax wixii aqoonaya qabta maaha wax jilka soo socdee soomaalinimo u dagaalami doona qabta maaha wax kuwii soomaalinimada qabriga u galay qabta maaha kuwii calanka iyo ciidda soomaaliyeed markaad ka gaabiseen raasi casayr ilaa raasi kaambooni inaad madax u tihiin markaad ka gaabiseen inaad calankan buluugga iyo cidda sidataba aad madax u tihiin waxaad caddayseen waxa aad tihiin ceel biyayarooda baa layidhi ninkaan ka soo warramayna isagaa qundiyo lafa ah ninka intaa idinku baran waayee soomaaliyeed oo caawa idinku raba ama waxqabad ha idinku sugayo ama soomaalinimo ha idinku garab joogo ama qabiil ha idinku garab jooge isagaa gudcuranda ku caddayn doona ninka caawa inta aan halkaa ka sheegay arki waaya oo idinku garab taagan xamse iyo xasanow soomaalinimo meeshaa ka joogtaan idinku garab taagan horta isagaa gurmad u baahan ninkaas ninka caawa idin garab taagan ee leh xamse iyo xasan baa lala hadlay isagaa gurmad u baahan iyo cid badbaadisa waxaan kaloo idiin caddaynaya oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u caddaynaya inta hubka shabaab laga soo rogay dekedda muqdisho hubkii inta laga soo rogay oo loo soo galay baa jiidaha loo geynayaa oo rasaas beenbeena la leeyahay dagaal baa halkaa ka dhacay dagaal xabad lagu ballamay oo inta la isku rido halkaa khasaara ka dhacay hubka lagu wareejiyaa oo gadaal looga baxa hubkii hadda dekedda ka digaayey bay shabaab soo wada bandhigaysaa istaraatiijiyadda shabaab hubka intaa ku qabsataa xaggay ka keentay inta loo soo dejiyo oo loo qaado baa weliba maraafiic iyo xabad iyo duqayn iyo beenbeena laysugu daraa hubkana hoos loogu wareejiyaa
عن ذي شيء قفكي ضمير له اسكدا إنه يسكرب تاجو حكومة وحلقة كترينيسه والله وبالله وطلع مالين أيو أوغاندونا مالين أيو أوغاندونا مركي جوريجيس أفون يريد الإسكرسو تاجو أفون مركي جوريجيس يريد الإسكرسو تاجو أيو ورهلي دونا إنما كعادة وهوب كيد كده لو جسود الجيستا بريرة جيدا وجيني ولا رقبة على قبطي رقبة على قفرتي ما ندعين دوتو وانا دقن كي لغو يقين وقتيادي هوري حسن شيخين ونوع عاو رقمه وهوب كجيدا وجيو يا استراتيجيada bari waxaan weerareenaa meel hebla baan weerareenaa ka sii baxa inta la soo galo hub la dhigo arbahalan anagu ku soo indhabeelay oo soo aragnay oo soo daawanay oo geeday gashaba aanu la seexanay oo naqaano annagana khatali maayaan cidaad khataraysa khatala aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaanna waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed ee meeshan ku jirta waan ku tala galay wax kasta oo aan ka hadlay nin ugu neceb iyo nin ugu jecelba ننا أنا وعانو يا أمان كقدوني مايو لكن واجبات كيسارن ويه إنتان كهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.